yeelo dareen xooggan oo ku dhisan guul jacayl. Waxa aan rabo in aan ku baro way fudud yihiin, waa hab awood badan ku siin karta, sidoo kale aad ku soo jiidan karto guusha ee diyaar ma u tahay in aynu bilowno daawashada muuqaalka. Fadhiiso meel jawigeedu degan yahay, kana baaraandeg guusha aad u baahan tahay in aad hiigsato adiga oo isweydiinaya. Waa maxay waxa aan doonayo? Maxaan aad ugu baahannahay? Haddii aan guulaysto maxaan faa'idi doonaa? Maxay tahay ujeeddooyinka noloshayda? Miyaan doonayaa in aan ku noolaado nolol farxad leh, mise waxaan doonayaa in aan ku noolaado nolol liidata, saboolnimo iyo gaajo huwan? Markaad jawaab u hesho weydiimahaas, ku qor waraaq cad, kuna dhaji derbiga gaar ahaan qolkaaga, weliba meel aad ka arki karto, iskuna akhri 2 waqti, habeenkii ka hor inta aadan seexan iyo subaxa hore markaad soo toosto. Keli ha akhrisan, balse isku day in aad maskaxdaada ku dhex sawirato sidii ay naftaada isku beddeli lahayd haddii aad ku guulaysato yoolkaaga. Ha sawiran oo keliya, balse isku day in aad si dhab ah u dareento. Ma isku arkaysaa in aad tahay darawalka isteerinka u hayay hayaanka guushiisa? Waa sidee saadaasha kaa hor muuqata? Isku day in aad ii falanqayso hirka iyo doogo hortaada ka bidhaamaya, quruxdiisa iyo ildoogsigiisa. Dareenkaaga u fur waxa ay naftaadu jeceshahay ee raynrayn geliya. Mar kale, abuuro humaag maskaxeed sida adiga oo jooga goobta aad dunida ugu jeceshahay in aad u dalxiisto, adiga oo haysta gaari kan ugu qaalisan, guri weyn, gabar bidhaan quruxsan iyo adiga oo dhex fadhiya xafiiska shirkaddaada, weliba adiga oo amar kala siinaya shaqaalaha shirkadda. Haddaba, humaag maskaxeedkaas aad abuuratay wuxuu degi doonaa garaadka dahsoon, kadib naftu waxay ku dadaali doontaa sidii ay ku xaqiijin lahayd muuqaalka qurxoon ee aad sawiratay. Joogtayso humaag maskaxeedkaas muddo dhan 1 bil, shaki kuma jiro in ay maskaxdu dalbanayso adeegsiga awoodda dahsoon, waxayna isku dayi doontaa in ay raadiso barwaaqada iyo liibaanta aad sawiratay. Bal nafta u bandhig weydiintan: maxaa igu dhici kara haddii aan gaari waayo yoolkayga? Waxaad noqonaysaa dan yar, marna wax hela marna waaya, dadka agtooda aan magac iyo muuno badan ku lahayn, duruufi ay ka muuqato, shaqo aan heli karin. Dhanka kale, isku day in aad maskaxdaada u bandhigto barwaaqada iyo liibaanta aad gaari doonto, waa haddii aad ku guulaysato yoolkaaga. Ugu dambayn, ha ka daalin in aad joogtayso daawashada muuqaalka jimicsiga, waayo maskaxdu waxay leedahay waddo loo yaqaano marinka aqbalaadda, waana dhabbada keliya ee wax loogu gudbiyo caqliga dahsoon iyada oo la adeegsanaya xeerka joogtaynta. Waad ku mahadsan tahay inaad kanaalkan soo booqatay. Waxaad noo tahay qof muhiim ah. Barta guduudan guji oo ka mid noqo asxaabta buug maqal.